dunidan daa'in uumay dadku kala warla duluuc walboo degto dareenkeedu ma duugsana ee dad baa u dibadbaxoo duluucdooda tiriyey dantaydu waxay tahay diiwaan in laygu qoro dadkuna igu daystaan daanta kale haddaan idhaahdo dareenkaygaan doonayaa inaan xaraf da'eed ku duubo bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa alifu media haddii aad ku cusub tahay janalkeena fadlan saar subscribe kadibna taaba calaamada gambaleelka si aad u hesho muuqaalo xiiso badan oo aan halkan idinkugu soo gudbin doono maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonaa halkan 10 waxyaabood oo ay dumarku ku jeclaadaan ragga caadiyanba abwaaniin hore waxa ay dhaheen qofna kelima degi karo dunida raaxadeeduna waa lamaana daacada qof kaligiis noolaan karo adduunkani ma jiro qof walba waxa uu u baahan yahay lamaane ha yeeshee gabar walba uma baahna nin walba sababtoo ah gabar walba waxa ay ku riyootaa ninka ay jeceshahay in uu noqdo kan dooqeeda ah haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa 10 waxyaabood oo ay dumarka ku dooqdaan ragga uma kala horumarin doona sida ay u kala horeeyaan ama sida uu qof walba u kala jecel yahay ha yeeshee waxaan idiin soo xulnay 10 waxyaabood oo aan isleenahay waa 10 waxyaabood oo ay dumarka ku dooqdaan ragga gabar walba marka ay ninka ay nolosha la wadaagayso dooqanayso kaliya kama fikirto nin nolosha la wadaago ee waxa ay ka fikirtaa nin leh qodobada ay doonayso inay kula noolaato sidan oo kale ragga 10 waxyaabood oo ay dumarka ku dooqdaan waan idiin soo gudbin doonaa barnaamijyadeena xiga ha yeeshee maanta waxa aynu xoogga saari doonaa qodobkan midda koowaad haddii aynu idiin soo qabanno waxa ay tahay naxariista gabar walba waxa ay ku fikirtaa islamarkaana ay ka fikirtaa inay hesho nin aad u naxariis badan gabdhuhu badanaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan marka la yiraahdo qoyska ay ka dhalatay iyo marka la yiraahdo qoyska loo guuriyo sababtoo ah Soomaalidu iyo dadka kale inta badan waxa ay aaminsan yihiin in gabdhuhu kaliya loogu talgalay in lagu shaqeeyo islamarkaana aynu arkin inta badan dad u naxariista gabadhu haddii ay aragto nin naxariis badan islamarkaana ka naxaya dareemaya dhibaatooyinkeeda islamarkaana u diidaya shaqada badan waxa ay dareemaysaa in qofkaasi uu yahay qofkii ay dunida ka dooqan lahayd gabar walbana waxa ay ku dadaashaa in ay hesho nin aad u naxariis badan si ay nolosha raaxada leh mar u dhidhimiso qodobka labaad waa qurux ma jiro noolo dunidan dul saaran oo aan ka fikirin marka uu wax dooqanayo in waxaasi ay qurux badnaadaan taasi waa sababta labaad oo aan u dhahay dumarku waxa ay jecel yihiin ragga qurux badan inkastoo kan ugu quruxda badan qof walba uusan heli karin haddana waa ujeedka koowaad in qof walba uu ka fikiro qofka uu guursanayo ama qofka uu nolosha la wadaagayo inuu qurxanaado qodobka saddexaad waa jacayl ma jiro noolo dunidan dul saaran oo aan jacayl u baahnayn xitaa carruurtu waxa ay u baahan yihiin jacayl muhiimaddu ma ahan inaad aaminsan tahay inaadan aaminsanayn ereyga jacayl ha yeeshee waxaan la dafiri karin in qof walba uu u baahan yahay jacayl midda afraad waa xushmaddu waa waxyaabaha ugu muhiimsan ay dumarka ka eegaan ragga waxa ay doonaysaa nin xushmeeya islamarkaana qadariya rabitaankeeda iyo waxa ay iyadu jeceshahay haddii isaga uu taliyo islamarkaana isaga uu noqdo qof go'aan gaara ragga sidaa ah dumarka inta badan ma damcaan inay nolosha la wadaagaan waxa ay ka jecel yihiin ragga xushmada badan ee gabadha rabitaankeeda fiiriya midda shanaad waa koolkoolin noolo walba oo dunidan ku nool marka laga soo tago hooyadiisa waxa uu ku fikiraa inuu helo qof kale oo koolkooliya dhif iyo naadir inta badan ma dhacdo haddii ay gabadhu aragto qof koolkoolin badan ajilaya in gabadha uu koolkoolin doono waa mid kale oo gabdhaha lagu soo jiidan karo haddii ay dareento ama ay ka dareento qofka ay la haasaabayso in uu yahay qof koolkoolin doona marna kama dhaqaaqi doonto midda lixaad waa midii looga baahnaa inaan ku soo bilaabo ha yeeshee hore baan idinkugu sheegnay inaan u kala horumarin doonin sida ay u kala horeeyaan waa diinta waa lagama maarmaan in qof walba uu jecel yahay qof diintiisa haysta qof diintiisa ku adag qof diintiisa xishmeeya iyo qof diintiisa aan ka foqin islamarkaana aanan lahayn balwad iyo waxyaabo kale waana sababta midda koowaad mar walba looga dhigo in gabdhuhu ay fiiriyaan qofka ay guursanayaan inuu yahay ruux diin leh si beritoole uu ballamadeeda u ilaaliyo waa in marka hore uu diin lahaadaa midda toddobaad waa xorriyad rag badan oo dunidan dul saaran waxa ay aaminsan yihiin haddii dumarku xorriyad la siiyo in ay wax badan haleyn doonaan balse micnuhu taas ma ahan haddii aad gabadhu siiso
xorriyadaas oo aan ahayn mid ka badbadis ah islamarkaana aad dareensiiso in ay xor tahay aadan adigu maxaabiis aadan ka dhigaynin waxa ay dareemi doontaa in laga dhigay xor islamarkaana la yiri nafsadaada ilaali waxa ay halkaasi ka qaadi doontaa waxa loo yaqaano kalsooni waxa ayna xorriyadaasi ku dabaqi doontaa xorriyada aad adigu siisay kalsoonida la socoto waxayna ka reebtoomi doontaa waxyaabo badan oo aad adigu isleedahay xorriyada haddii la siiyo waa ay ku dheeli doontaa sababtoo ah qofka markii uu xorriyad helo waxa niyadiisa ku soo degi karta fikrad ah qofkan xorriyadda ku siiyey waa in aad adiguna ugu guddaa kalsoonidii uu kugu siiyo xorriyadda midda saddexaad waa romantic ereyga romantic dad badan oo hore u jira ma fahansana dumarka dambe ayaa aad u fahansan ereyga romantiga waa in gabadha lala qaato waqti aad u wanaagsan waa in gabadhu lala sameeyo waxyaabaha keenaya naxariista sida in laabta la gashto in loo soo dhawaado in afka cuntada loo geliyo in xilliga sariirta ka hor lala qaato waqti kaftan leh islamarkaana iyadoo laabtaada ku jirta loo sheekeeyo laga qosliyo kaliya ma ahan in laga fikiro shaqada sariirta ka hor waxaa jiro ereygan romantic shaqo loo yaqaano oo dad badani aanan fahansaneyn waana waxyaabaha ugu badan ay dumarku ka fikiraan marka la guursado midda sagaalaad waa labiska gabar walba waxa ay ku riyootaa in ninkeeda ay iyada u labisto ama in ay la haasaawdo nin aad u labis badan maayinuhu qabtaan lagana sheekeeyo waxa ay fiirisaa mar walba marka uu soo labisto labiskiisa waxa ay ku darsataa talooyin ah kalarada shaatiyada iyo dharka uu qaadanayo taas waxayna la macno tahay inay jeceshahay hadba labiska ugu qurxoon ee uu ku soo baxayo saygeeda midda tobanaad waxaan isdhihi karaa diinta kadib waa midda labaad marka loo eego dhankayga kacdushiid ahaan waxa aan aad u daneeyaa nadaafadda waana sababta aan u dhahay waa midda labaad nadaafadda badan iyo ragga carafka badan ee iscarfiya iyo ragga nadaafadda badan ee istirtira waa waxyaabaha ugu waaweyn ay dumarku jecel yihiin inkastoo ragga ay kaga sii jecel badan yihiin 10kaas qodob ayaan isleenahay waa kuwa ugu badan ee ay dumarku ku dooqdaan ragga laga yaabay inaan ka tagnay qodobo muhiim ah ayeeshee Alifo Media waxa uu soo xulay 10kan qayb markii aynu samaynay baaritaano badan dhawaan waxaan idiin soo gudbin doonaa sheekooyin taxane ah oo ku saabsan arrimaha jacaylka iyo ragga iyo dumarka ee waqtigan jira waxaynu ku saleyn doonaa xilliga ama zamanka aynu ku jirno fadlan ku xirnow Alifo Media saar subscribe kadibna riix calaamada gambaleelka si aad mar walba u hesho fiidiyoyaal ku xiiso geliya nabadiino